هالو السلام عليكم reer xeelada xirfad jimco wanaagsan jimco walba muuqaal soo gudbina waqti maanta waxaan ka hadlaynaa waa iska cilmi dhagoolkii wax weyn maahan waxaan ka hadlaynaa bas number systemka nambarada marka wax lagu tirinayo hadda adduunka yaa wax tiriya horta bil aadan iyo computer wax tiriya Soomaa macquul wax kale inay wax tiriyaan xayawaan animals laakiin tirada ma naqaan laakiin bil aadanku wuxuu sidoo wax ku tiriyaa waa naqaanayo decimal isticmaala computerkana binary isticmaala oo laba wax ku tiriya marka waxaan sharaxnaa bas computer laba number bas u yaqaanaa bilaatankana 10 number u yaqaanaa marka wax tirinayna hexadecimal octal ay jir wax iska dhaaf laakiin labada number oo primary oo nolosha adduunka ku kala socoto ko reer ibn aadam Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu siiyay 10 asaabic ama 10 fingers waxa dhahdaba 10 faro ilaahay siiyay Soomaa marka 10kaas farood hadda baadimka joogto soo xasuusaba markii ariga la soofinaayo ama la dareerinaayo subaxii waa la tiriyaa Soomaa albaabka laga istaagaa maxaa laga istaagaa oo dameesha laga istaagaa soo xasuusaday markii ugu dambeysay ari aad tiriso gormay aan 2012 okay marka computer ka hadlayna hadda computer iblaadka maadaama ilaahay oo 10 farood siiyay waxa dhahay jira tolehead ama madax ka tirin markii madax laga tirinayo 10ka farood marka waxay naga caawisay inaan suubino masaaridii hore oo Egyptiankii hore ayaa waxay iqtiraaceen ama la imaadeen iyo carabtii horeba numberka la yiraahdo Arabic system ama waxa la yiraahdo 1 2 3 ilaa 9 0 ilaa 9 ka bilaab numberadaas marka waxa la dhahaa decimal maxayna ku saleysiin 10ka farood ibn aadam gacmood ay leeyihiin sababta maxay tahay markii la joogo 10 markii 9 garaayo waxa la yiraahdo marka hadduu sheegay kabad ka waran 10ka ibn aadam waa la yaqaan calaamada loo subiyo qof markuu waxaysanin ever loo subiyo markuu hal shay haysta hal loo subiyo ilaa 9 loo subiyo kadib hadduu numberada bataan ka waran marka tiro walba calaamada loo subinaa yaa adduunku wareer ka dhacay soo marka waxa la go'aansaday numberada caadiga ah oo la yaqaano ilaa decimalka markii bataan in bidix wax looga daro tusaale ahaan 100 markii 100 inta calaamad cusub subin lahayd halaad qoraysa laba ibra gadaal uga darsanaysa Soomaa computerka markuu wuxuu yaqaanaa wax isna ma yaqaanaa 1 2 3 ma yaqaanaa wuxuu yaqaanaa bas 0 iyo 1 oo macnaheedu tahay 0 iyo 1 bas yaqaanaa wax kale ma yaqaanaa sababta maxay tahay isweydiis inside of the computer there is a tiny particles called transistors capacitors diode a lot of other things maxaan kala hadlaynaa dadka aan aqoon waxaas raadi jibi ama wax jibi aad koronta gudihiisa maxaa ku jira sheerihiis ku jiraan oo kala loo wareegsan adduunka waxa kala wada dhan waa shay saddex shay ayaa adduunka dhan kala wada hadda saddex shay maxay kaliya waa shayga la yiraahdo transistorka capacitorska iyo waxa la dhahaa registerska saddex shay iyo resistorska ama hindida sidaan register ay dhigo wax kasta jaab dhawaaqan marka saddex shay adduunka kala wada transistorka waa shayga off-kii on-ka suubinaya computerka off iyo on bisoo shaqeysta Soomaa tusaale sababta computerku 0 iyo hal bas u yaqaan sababta isweydiis macnaha koronto ku shaqeeya computerka wax kasta adduunka koronto ku shaqeynaya maxay yaqaanaan koronto in la daaray in la damiyo wax ka dhaxay ma jiro no nothing else wax kale ka dhaxay ma laha laakiin sida ogeed bilaadanku wuxuu isticmaalaa decimal oo 10 number bilaadanka 10 farood leeyahay mujiso qof ah oo ka badan leh macquul laakiin caadiyan 10 farood leeyahay sida darteed decimal isticmaalnaa computerka wuxuu isticmaalaa hexadecimal wuu jiraa hadda laakiin computerka wuxuu yaqaanaa bas binary 0 iyo 1 sababta maxay tahay computerka wuxuu ku saleysan koronto gudaheeda isku jirto korontadas maxay taqaanaa off iyo on